kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay ee wada hadallada ka socda filan Soomaaliya sanadaro cusub oo lagu doortay magaalada Kismaayo Kenyatta oo degniin hor leh ka soo saaray go'aankii maxkamadda ICJ daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan xarunta filan Soomaaliya waxaa wali ka socdo wada hadallo gaar ah oo u dhaxeeya madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday iyo wasaaraha xukuumadda xirgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble wararka ayaa sheegay in maanta dib loo soo ambaqaaday wada hadallada oo xalay soo bilowday waxaana ku biiray xubno hor leh oo mas'uuliyiin ah iyo sidoo kale saraakiil sida ay inoo xaqiijiyeen in wareedyo lagu kalsoon yahay waxaa kulanka maanta ka dhacay xarunta filan Soomaaliya Farmaajo iyo Rooble ku weelinaya wasiirka amniga gudaha ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo agaasimaha kumeel gaarka ee Nisa Bashiir Goobe wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale inoo sheegay in wada hadallada intooda badan diiradda lagu saaray sidii loo dhameyn lahaa arrinta hay'adda Nisa iyo dood ka dhalatay magacaabista wasiirka cusub ee amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya inuu jiro tanaasul ay sameynayaan labada dhinac inkastoo wali qodobo qaar ah la isku hayo waa markii ugu horeysay oo si fool ah ay isku hor fariistaan madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday iyo wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble si kastaba wada hadalladan waxaa garwadeen ka ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ku guuleystay inuu si toos ah isugu keeno labada dhinac oo uu khilaafkooda saameyn xooggan ku yeeshay geedi socodka arrimaha doorashooyinka dalka ee 2021 haatan sanataro cusub oo lagu doortay magaalada Kismaayo xildhibaanada Jubbaland ayaa maanta doortay sanataradii ugu dambeeyay ee ka imaanaya dhinaca maamulkaasi kadib doorasho ka dhacday gudaha magaalo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose Xasan Daahir Yarow ayaa 59 cod uga soo baxay kursigii shanaad ee ay doorashadiisu maanta ka dhacday gudaha Kismaayo wuxuuna ka guuleystay Cabdi Xuseen Cali sidoo kale Ibraahim Awgaab Cismaan ayaa ku guuleystay kursiga lixaad isagoo helay 57 wuxuuna ka guuleystay Farxiyo Macalin Cabdi kursiga kale ee toddobaad oo ahaa qoondada haweenka waxaa sidoo kale ku soo baxay Leyla Nuur Maxamed oo heshay 63 cod waxayna ka guuleystay Xareedo Maxamed Sheekh doorashada ayaa haatan sii soconaysa waxaana la guda galay kursigii ugu dambeeyay ee sideedaad oo ay ku tartamayaan laba musharax oo kale waxaa goobjoog ka ah doorashada xubno ka socda guddiga hirgelinta doorashooyinka heer fadlar kuwaasi oo u tagay inay korjoog ka noqdaan doorashada sanatarada cusub Jubbaland ayaa qorshaheedu yahay inay maanta soo gabagabayso doorashada xubnaha aqalka sare iyada oo horey u soo dooratay 4 xubnood ammaanka ayaa dhinaca kale aad loo adkeeyay iyada oo goobta ay ka socoto doorashada la geeyay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan kuwa booliska Jubbaland haatan Kenyatta oo degniin hor leh ka soo saaray go'aanka maxkamadda ICJ madaxweynaha Kenya Kenyatta ayaa mar kale ka hadlay go'aankii ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ taasi oo inta badan biyihii la isku hayay u xukuntay Soomaaliya oo ku guuleystay dacwadii kala dhaxaysay Kenya oo ka hadlayay munaasabada lagu dabaaldegay maalinta haliyada Kenya oo shalay ku beegneed ayaa gabi ahaanba ku gacan saaray xukunka maxkamadda ICJ cidna kama aqbaleena inay sheegato dhulkeena ayuu yiri sidaan u xushmeeno xuduudaha dalalka kale ayaan sidoo kale ka filayaa in xuduudeena dhuleed iyo badeedba loo xushmeeyo ayuu yiri madaxweynaha Kenya sidoo kale wuxuu soo saaray degniin culus oo la xiriirta go'aankaasi oo uu shaaciyay inuu dhalin karo cawaaqib xumo ka dhalatay waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha dowladda Kenya oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in xukunka ay gaartay ICJ uu waxyeeleen karo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo ah laba dal oo daris ah isbedel weyn ayuu u keeni karaa horumarka dhaqaale iyo midka siyaasadeed waxayna halis gelin kartaa amniga gobolka Geeska Afrika ayuu sii raaciyay Kenyatta hadalkan ayaa ku soo aaday iyada oo Kenya looga guuleystay dacwadii ICJ ee la xiriirtay muranka ay gelisay badda Soomaaliya si kastaba Kenya ayaa horey uga hor timid xukunka ay riday xukuumadda ICJ halka Soomaaliya ay si weyn uga dabaaldegtay guusha ay ka gaartay kiiskaasi daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa war wixii dalka iyo dafaha caalamka idinkaga haynay wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray oo idiin akhrinay anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaanillah